نسيد ديري هي أوباح أما تيبي هي عالروبات نتايا هاي جاي هايو غوهو إينان كاها هاتو سوغو dhaantadan markaad maqashay dhalinyaro fara badan ayaa waxay u haystay in gabadhi ay qaado dhaantadan balse waa kuma fanaanka qaaday dhaantadan maxamed carab waxa uu dhaantadan qaaday 12 sano kahor xilligii cabdi maxamuud cumar cabdi ilay uu ka tirin jiray dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya magaciisu waa maxamed carab sidaan idin soo sheegayba dhaantadan ayaa magaceeda lagu magacaabaa waa dhaanto markaas hablaha Soomaaliyeed si weyn muuqaal isaga soo duubeen oo markaas wiigagii ugu dambeeyay saameyn weyn ku yeelatay baraha bulshada si gaar ah aalada TikTok dhaantadan ayaa la yiraahdaa dhuuxiyo lafaha adiga degay waana dhaanto si weyn hablaha Soomaaliyeed muuqaal kala duwan isaga soo duubayeen oo waxa jira in social media-ba meeshii aad muuqaal ku dhufataba gabadh Soomaaliyeed ay dhaantadan iskaga soo duubtay oo waxay noqotay dhaantadii ugu saameynta badnayd ee wiigagan hadda aan ku jirno baraha bulshada qabsatay meel kasta ayay ku jirtaa haddaba dhaantadan ayaa waxaa la qaaday sidaan idiin sheegayba 12 sano kahor waana sidii si lamid ah heestii markaa ay lahayd gabadhii fanaanada ahayd ee Nimco Habi lagu magacaabi jiray iyaduna qaraxday maalin dhaweyd taas oo iyaduna caalamka oo dhan qabsatay balse tan hadda caalamka ma aysan qabsan oo dadka cadaanka ma aysan gaarine waxay gaadhay Soomaalida meel kasta si gaar ah hablaha Soomaaliyeed ayaa meel kasta social media inta iskaga soo duubeen si gaar ah platformka TikTok iyo sidoo kale Instagramka bal horta aan idin daawasiyo wiilka dhaantadan qaaday iyadoo markaas laga soo daayay telefishinkii hore ee Cabdi Ilay uu maamuli jiray ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo STV lagu magacaabi jiray muuqaalka ninkaasna aan idin daawasiyo dhaantaystaha ee maxamed carab نسيد ديري هي أوباح أما تيبي هي عالروبات نتايا هاي جاي هايو غوهو إينان كاها هاتو سوغو نسيد ديري هي أوباح أما تيبي هي عالروبات نتايا هاي جاي هايو غوهو إينان كاها هاتو سوغو ندوحا إيو هول فاها عادي قادي هيقا إيو نكوتح نوهول هو نفتو هوي أوتا بانكو وچلاها ندوحا إيو هول فاها عادي قادي هيقا إيو نكوتح نوهول هو نفتو هوي أوتا بانكو hablaha Soomaaliyeed iyaguna muuqaalada isaga soo duubay quruxda badnaa ee cajaa'ibka ah iyagana halkan ka daawada nadaabi baaxay hay sidii dhaxyar duubo hooyadaha hawlahaaba hadamahan kaaga dhaaga hanuglaha nadaabi baaxay hay sidii dhaxyar duubo hooyadaha hawlahaaba hadamahan kaaga dhaaga hanuglaha nadulki hoho hooya iyo noogobodho hoolgu helay nadalgobeedey hey walahaiga iyo nakudhex noohol hoo naftoohoy oo dhabanku u jeclaha nadhuuxa iyo oo lafaha adigadhi higaga iyo nakudhex noohol hoo naftoohoy oo dhabanku u jeclaha nadhuuxa iyo oo lafaha adigadhi higa iyo nakudhex noohol hoo naftoohoy oo dhabanku u jeclaha iyo nakudhex noohol hoo naftoohoy oo dhabanku daawadayaal dhaantadan social mediaha ayay qabsatay
labadii wiig ee ugu dambeysay, waana dhaanto si weyn saameyn ugu yeelatay iyadoo 12 sano ka hor lasoo saaray waqtigaana qarxi weyday oo dowlad deegaanka Soomaalida ESTV iyo sidoo kale safarada madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar laga qaadi jiray ayaa hadda dib u soo cusboonaatay oo waxay qabsatay labadii wiig ugu dambeeyay social media si gaar ah TikTok-ta. saaxiibada qaaliga waad ku mahadsantiin haddaad soo gaadhay dhammaadka muuqaalka. Si aad u hesho dhammaan dhacdooyinka xiisaha leh, fadlan YouTube-keena Hogol News subscribe noo saar, muuqaalkana like, ha ka ilaawn fikirkaagana kommentiga hoose nagula wadaag. Hogol News, baahiyaha bulshada.